maxamed cumar kusoo dhawow barnaamijka warbixintan kooban ee ku saabsan wixii Minneapolis ka dhacay. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ganacsiyo badan ayaa la burburiyay, waxayna u badan tahay dhinacan iyo koonfurta magaalada Minneapolis oo dadka Soomaalida ay degan yihiin. ganacsiga la burburshay sidee buu u saameyn karaa dhaqaalaha? dhaqaalaha markii laga hadlayo horta waxyaabaha ugu horeeya waa amniga. haddii amni aan la helin dhaqaale maba jiri karo. saa daraaddeed maadaama amnigii uu ekaaday inuu faraha ka baxay habeenadii u dambeeyey Minneapolis iyo St. Paul, waxaa soo gaaray burbur badan oo dab la qabadsiiyey ganacsiyaal badan oo magaalada magac ku leh, gaar ahaan ganacsiyadii Soomaalidu ay ka wax gadan jireen ama la beec mushtari jireen oo ay ka mid tahay Targetka, Cub Foods iyo meelo badan oo makhaayado Soomaaliya iyo dukaamo Soomaaliya ay ka mid yihiin. marka burbur weyn markuu dhaqaalaha soo gaaray, dawladdu waxay ku dhawaaqday inay xirtay bandow ay ku soo rogtay. marka wax ganacsiyo hadda jira maba lehba. marka hore waxaa lala dhacay dhibaatada uu geystay aafada coronavirus ama COVID-19, taasoo dhaqaalihii sii caqabad kusii noqotay oo sii ragaadisay kadib marka uu ugu darsamo magaalada Minneapolis iyo weliba magaalada St. Paul dhibaatadan ka dhalatay ninka madow ee la dilay. sidee ayaad u malaynaysaa in dhaqaalihii la rajaynayay inuu xilli fiican soo kabsasho ahaan uu qaadan doono ilaa muddo intaa la eg? horta saadaasha dhaqaalaha in badan waxay noqotaa waxay ku xiran tahay shacabka, dawladda iyo sidii lagu soo celin karo sida ugu dhaqsaha badan kala dambeynta. marka saadaasha hadda la wadwado waxa waaye 2 week inay qaadato in dawladdu ay xakamayso waxyaabaha qulqulatooyinka hadda sababay. waa nasiib darro horta ninkii la dilay iyo qof kale oo hadda sida la sheegayo ku dhintay qulqulatooyinkan. businessyo badan ayaa ku gubtay. waxaan rajaynaynaa muddo week, 2 week, 3 week inay ku soo noqoto. laakiin sida u tiriba COVID baa markii horeba aafeeyey dhaqaalaha oo muddo 2 bilood baa waxba lagu xirnaa guryaha. marka waxaa nasiib darro ah markii hadda la bilaabi lahaa dhaqaalaha oo la isdhihi lahaa waa la soo noqday oo hawshan in ay ka soo dhex gashay. sidaan hore u wareyna amni darro hadday dhacdo dhaqaalaba lagama hadli karo. in amniga la sugo ka bacdi dhaqaalaha laga hadlo. marka qiyaasta ugu badan aan arkayay maanta marka aan fiirinay idaacadaha iyo joornaalada waxay lahaayeen week iyo 2 haddii dawladda awooddo inay ku soo celiso. haddii awoodi weyso dee dabcan 2 bilood inay qaadataaba laga yaabaa. taariikhda marka la akhriyo waxaa jira meel sidaas oo kale ah oo arrin noocan oo kale inta ka dhacday dhaqaalihii burbur badan uu ku yimid, kadibna dadkii dhaqaalaha lahaa ee ganacsatada ahaa in badan oo kamid ah ay ka guureen oo u guureen dhinacyadaas iyo suburbanka mathalan, taasoo dhibaato ku noqotay dadkii meesha deganaa. suuragal ma tahay ganacsiyada la burburiyey sida Targetka iyo Cub Foods iyo meelaha noocaas ah in aanay dib u soo noqonin oo ay ka guuraan South Minneapolis oo weliba meesha Soomaalidu ay u badan tahay deganta? run ahaantii waa wax walwal badan leh. maxaa yeelay waxyaabaha cunsuriyeynta dalka Mareykanka ka dhacda waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid ah wax la yiraahdo redlining, oo macnaheedu ay tahay in xindaab guduudan lagu xakameeyo meelaha ay dadka madmadow degan yihiin. marka taasina waxay bilaabatay 60meeyadii mar sidan oo kale mudaharaadyo badan iyo dab badan iyo dil badan uu ka dhacay dalka Mareykanka. marka waagaas baa waxa loo suubiyay in la yiraahdo areadan madowga ay degan yihiin ganacsiyo noocaas lagama furayo, moola lagama furayo. hadda waxa ognahay meelaha qaarkood North Minneapolis ka mid tahay dukaamada kuma yaalaan oo grocery iyo dukaamadii waaweynaa la yaqaanay. marka South Minneapolis Soomaalidu nasiib bay u lahaayeen, laakiin way dhici kartaa inay soo noqon waayaan. dabcan wayna ka shaqeyn jireen oo shaqaale badan oo iyaga heli jiray inay ka dhex shaqeeyaan. maanta bandowga magaalada ku sugan horta meel furanba ma jirto. waxyaabaha ugu badan ay saameynta ku yeelanayso waxa waaye dadkii oo aan jaanis u helayn meel ay cunto ka soo gataan ama meel daawooyinkooda farmashiyaashii dhan baa la xiray. moolashii waaweynaa ee magaalada Minneapolis iyo St. Paul iyo meelaha ku hareeraysan dhan baa la xiray. marka waa arrin aad iyo aad dhib iyo culays badan u soo kordhisay. wax digniinana lama bixin lama dhihin waa la xirayaa oo lagama sii fikirin oo qof walba ma uu sii qaadan wixii u baahnaa. ugu dambeyntii maxaa kula talinayd ganacsatada Soomaaliyeed? mar walba Soomaalida iyo ganacsatada dhanba waxa looga baahan yahay in ay gataan wax la yiraahdo insurance ama caymis oo in badan dadka Soomaalida ay ku baraarugsanayn qaarkoodna bay iska aaminsan yihiin inuu xaraan yahay.
ganacsiga waxyaabaha caymiska uu ka anfaco ugu weyn waxaa weeye markii sidan oo kale ay dhacdo in ganacsigaas uu badbaado oo lacag la siiyo anu wadaad maahi laakiin waxa dhihi lahaa ganacsiyaasha dhan waxaan kula talin lahaa inay gataan lacag yar bay bixinayaan bil walba marka sidan oo kalena looga baahan yahay oo ay u soo noqon lahayd waqtigooda